iyadoo magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ay ka socdaan ciyaaraha kala duwan ee gobolada dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maalinba maalinta ka dambaysa waxaa korisii kacaya kala jiidashada ciyaaryahanada gobolada Soomaaliland ee ka qayb galaya koobkan isla markaana ku wajahan macsuumadaha ay fidinayaan shirkadaha ganacsi iyo waliba shakhsiyaad kamid ah muwaadiniinta u dhashay dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland oo qaarkoodna ay ka soo jeedaan gobolkan Togdheer qaarkoodna ay ku sugan yihiin gudaha magaalada Burco isla markaana ay u dhasheen gobolada dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland gobolkan Awdal ayaa maanta ciyaaryahanadiisa kala duwan ee orodada kubadda kolayga iyo waliba kubadda cagta oo aad ugu muhiimsan uguna xiisaha badan koobka gobolada Soomaaliland ayaa waxa macsuumad qadar sharaf ah u sameeyay mulkiilaha shirkadda soo saarka biyaha ee magaceeda loo yaqaan Alnafora Saleban Jaamac Roble Saleban Kulul Hotel Ramad oo kamid ah hoteelada gudaha magaalada Burco oo martiqaadkan qadar sharafta ah maanta loogu sameeyay xulka kubadda cagta iyo kubadda kolayga iyo waliba orodyahanada reer Awdal qadar sharaftan ayaa waxa goobjoog ka ah gudoomiye ku-xigeenka gobolka Awdal duqay iyo waxgarad kamid ah rugcadaaga kubadda cagta ee gobolada Soomaaliland gaar ahaan gobolka Awdal gudoomiye ku-xigeenka gobolka Awdal Cabdi Nuur Sugaal ayaa ka mahad celiyay soo dhaweynta Burco ay u sameysay gobolka Awdal iyo waliba martiqaadkan qadar sharafta ah ee ay u fidisay shirkadda Alnafora oo kamid ah shirkadaha biyaha soo saaray ee magaalada Burco ku yaala si gaar ah ayaa la iskaga saaray gobolka Awdal Baslena ee gobolada kale nala qaban maamulaya waayo xaafadihii jaarkii hablihii cuntada ku hablihii meesha masaxay hablihii xaafada ka masuula hablihii cuntada ka masuula wadiyaaraysa raggii xaafada oo marwalba nimadeedii la jooga oo maxaa qabtaan sideetii xitaa hadal xumo ah oo la dhawu diidaya wala burca kama maqal dhagaxda tuurana xalwaa Maxamed Doolal oo isna kamid ah mas'uuliyiinta shirkadda biyaha ee Alnafora ayaa xuseen macsuumadan maanta ay u sameeyeen gobolka Awdal ay ka dhalatay wacdarihii ay ka muujiyeen ciyaaraha gobolada sida uu hadalka u dhigay shirkadda Alnafora waxay idin soo gudbinaysaa salaan aad iyo aad u qiimo badan صراحة waxaan aad idinku hambalyeeynaa haddii aad tihiin ciyaartooyga reer Awdal sidii quruxda iyo qiimaha badnayd ee u ciyaarteen ama u muujiseen maharadkiina ciyaarta markii golaha la joogay oo ay صراحة ka muuqatay si ay mihnada ku jirto iyo asluubta iyo xeerarka ciyaarta oo aad u heesareeyay oo soo bandhigteen aad iyo aad badan hadii aan shirkadda Alnafora nahay aanu idinka mahadinaynaa mujtamaca reer Burco ama guud ahaan ummadda reer Soomaaliland ay raadinayaan gabagabadii kulankan qadar sharafta ah ayaa iyaguna waxa hadallo kooban ka soo jeediyay isduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka ee gobolka Awdal iyo waliba xildhibaan Bakar Cabdiraxmaan oo kamid ah golaha wakiilada Soomaaliland sidoo kale iyaguna waxa kulankan ka hadlay oday Jaahuur oo kamid ah odayada gobolka Togdheer ayaa isna kulankan ka hadlay waxaana ay dhamaantoodba tilmaameen shakhsiyaadkaasi kana warameen ahmiyadda ay ciyaaruhu u leeyihiin daayarta reer Soomaaliland iyo dhiirigelinta xilligan looga baahan yahay dadka waxgaradka martiqaadkan loo fidiyay gobolka Awdal ayaa waxa uu ku soo beegmay xilli xulka kubadda cagta ee gobolka Awdal uu horkacayo groupka B oo uu kamid yahay isla markaana waa 4 dhibcood hanaanka ugu hayo groupkaasi isagoo dhibcahaasi ka kala qaatay gobolada Sool oo barbardhac la galay halka uu si xaraga leh uga badiyay gobolka Saaxil isagoo 4taasi dhibcood ka horkacayo groupkaas